waxaan maqlaayay oon media ka maqlayay qolo xisbiga wadaniga oo booqday madaarka Cergaabo intay saddex taageen ka hadlayay madaarka iyo hawlihiisa runtii waxaad moodaa xisbiyada mucaaradku barnaamij markay samaystaan kaasuun bay raaci jireen oo dabeedna wixii barnaamijkooda ugu jiruun bay ka hadli jireen waxaad moodaa imaka in lagu yardayoodo ay qaar ka hadlayaan waxaan barnaamijkoodaba ku jirin waxaan wasaar ahaan sheegayaa madaarka Burco iyo ka Boorame iyo ka Cergaabo waxa qorshaha wasaaradda ugu jireen in laga shaqeeyo khaasatan ka Burco imaka uu socdaa ka Cergaabo iyo ka Boorame labaduba oo basic wixii aan laga qabto ee awood inoo saamaxday waynu ognahay kalaasacado laftiisa imaka uu shaqeeyaa waxyaalaha inagu dhacay waxa kamida duruufta dhaqaale abaaraha sixir bararka waxyaalaha soo dhaw miisaaniyadda in saameeyay boqolkiiba dhowr iyo 40 miisaaniyadda in sanadka isdhimay taasi waxay keentay in madaxweynuhu go'aan soo saaro in la hakiyo waxyaalaha mashaariicda ahaa oo dhan taasa qayb ka ah inay hakato wixii laga qaban lahaa waxaan rajaynayaa muddada inooga hadhay in haday suurta gasho wixii u baahan yahay daruuri laga qabto taa waa in la ogaado waxa weeye inaanay dayacaadi jirin ku talagalka qorshahana wasaaradda ay ugu jirto laakiin waxaan leeyahay hadda qolooyinka mucaaradka wax dacaayad iyo propaganda ka dhiganaysaan war waxa qabanaysaan idinku jira ajandaha siyaasadeed ee qorshaha samaysateen ka hadla kolba inta gidaar ay istaagtaan hawrana waxan baa kan iyo kanaan nuuradeenaya ciidamadan inta kordhinaynaay war waxa qaadi karaysaan oo dadku idinka aqbali karo ka hadla intaas uma noqon lahaa waa mahadsantii